qof inta la hadlay ma aanan dhihin ha loo sheego shabaab iyo cid kale midna diintan ka baxay si hoose qof ugu ma sheegin si layfana qof ugu ma sheegin haddana waxaan diyaar u ahay inta aan noolahay inaan diinta islaamka ku sugnaado haddaan dhintana ilaahay waxaan weydiisaa inaan ku dhinto haddii la soo bixiyo ilaahay waxaan ka baryaa in la igu soo bixiyo diinta islaamka waxaan u dagaalamayo qabiilkayga iyo reer hebel iyo deegaan afwaax iyo kama mid ahan maadaama diinta aan leeyahay waxaan ahay inaan dambi ku galay aysan jirin diinta ilaahay aan rabaa inaan u dagaalamo aan dhinto in lay dilo iyo in hadda la iska kaydaayana mid aan ku noolahay ma jirto qofka mar walba geeriyo ku xukuman yahay waxaan idin leeyahay haddaad dad muslimiin tihiin oodnan tuuga ahayn oodna nimankaas alaab ka xadin oodna maal ka dhicin oo aan diintiina shabah idinka lahayn inaad muslim tihiin janna idin soo dagatay dagaalama waxaa naloo sheegaa oo hadda aan idaacadaha ka dhageystaa dawladda murtadiinta iyo midda gaalada iyo ridada dawladda idinka ka socday ma musliminatiin mise wax kale dad muslimiin soo ma hidin aniga waxaan maqalsanahay Mareykanka in dad muslimiin joogaan mana tagin afkiisana ma aqaan waxaan rumaysnaa qofka muslimka sheegtay inuu muslim yahay haddii qof dadkan kamid ah iraa gaalaan ahana lagama yaabo inaan u ka aqbalo inuu muslim yahay ilaa asaga sheegtay gaalnimee anugu islaamka aan sheegay ilaahay marka hore igu lahaa inaan rumeeyo asagaan rumeeyay allahaas macmal maahan mid cid u samaysatay maahan waa allihii koomkaan lahaa haddaan islaam ku noqon waa inaan allah rumeeyana nin meel fadhiyo ra'yigiisa ku noqaya ma jiro waxaan idin leeyahay waxa xaq nagu ah inaan diinta islaamka u difaactano in qofkii saa'il xataa soo tawxiid ay haduu saa'il noqdo sharciga amray inaan iska dhicino haddii marka ay muslimnimada aan sheegayna sheeg iska ahayn waxa la guba hadda guriyii waxaan u maleeyahay inaan guri gaal jirin barkadiina waa la qarxiyay waligay ma aanan malqab baraak salaad waajib ku tahay soon iyo saka iska bixin midna qofka muslimka oo furta xoolo gaala leedahay asaga leh sida diinta ilaahay ay qabto wixii asaga taabacsan oo muslimiinaha ku dhaqma in gaala wadan laga furto meel la isku hayaa la isku ma hayo hadda aniga hal gaal oo taageersan ciid ku oogi wax gaal oo taageersan ma jiraan nimankan dawladda sheegteen dhexe mid sarasaha sheegteen waxaan ka rabnaa muslimiin inay nagu taageeraan taabacdal anagu waxaan nahay dad isdiray ka caraysan dibka loo geystay oo shabaab u geystay oo maalkeenna ku dhacay oo barkadaheenna ku gubay oo guryaheenna ku gubay oo dadkeenna ku qaatay dadka ka caraysan ayaana haddii ilaahay qadaro fariisimada geedka harsadaan baan naqaan meeshay ku hoydaan baan naqaan meeshay maartay sahanka uga laabtaan baan naqaan meelaha ay miinada geli doonaan baan garanaynaa kulligood waa ka daba tagi doonaa haddii ilaahay idmo insha allahu tacaala inaan uga daba tagno nafteennana ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sallimno maaragtay ajarna ka goobno intaa baan diyaar u nahay waxaan leenahay intaa bacdal waxba warku waqti gaaban baa joognaa hawlo badanna dadka sugayaan waxaan ku soo dhawaynayaa hadalkaas wixii naga dhiman waxba ka tafaasiiri maayo waa taqaaniin waana u jeediin wixii naga dhiman mas'uuliyiinteennan ka sugaynaa ilaa heer maaragtay federaal iyo heer maamul iyo heer gudoomiyada waxa naga dhiman waad u jeediin wixii naga dhiman intaas aan horta ka sugaynaa insha Allah kariim anaguna shaqada waajibkeeda meesheena la kaga diro iyo mas'uuliyadiina la saaro inaan diyaar u nahay in sheegayna meel allaale iyo meesheena la kaga diro inaan diyaar u nahay